magaalada muqdisho ayaa lagaga dhawaaqay madasha midnimada waxaana madashaasi ku midoobay xisbiyada qaar xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwooda la magac baxay kudlada xubno wasiiro hore ugu soo noqday xukuumadii hore ee siyaasiyiin waxaana madashaasi midnimada wada tashiga gudoomiye loogu doortay in uu ka noqdo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Abdiweli Sheekh Ahmed Maxamed xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay madashaasi u fadhinaa halkan ama isugu nimi in aynu asaasno urur weyn oo siyaasadeed oo la doonayo mustaqbalka soo socda Soomaaliya inuu dhibaatada ka saaro waxa la doonayo jifi in loo qaybiyo waxa la doonayaa geed walba calan been in laga taagto oo madaxweyne yar oo been laga sameeyo oo waadama Soomaaliya soo noqon Professor Abdiraxmaan Baadiyo oo madashaasi gudoomiye ku-xigeenka koobaad ka ayaa dhankiisa ka hadlay madasha midnimada wada tashiga ee Muqdisho lagaga dhawaaqay ballan qaadayna inaan arki doonin aan ku xukun isku haysanay talo hore ayaan isugu sheegnay meeshaan anaka uma imaan inaan madax Soomaalnimo aan ku marno ambaan anaka baad goob ku naqano waxaan rabnaa Soomaali laakiin xur ah oo isdoorata oo dawlad fiican leh oo madaxda ay rabta dooratan u taagana anaka halkaan ogaada waxaan diidaynaa koox kasta wax afduubaysa musuq samaynaysa qaranka xoolihiisa xadaysa dadka kala qaybinaysa waa ka soo horjeesanaynaa oo diinta Ilaahay nafarta waxaan ka shaqaynaynaa wax alla wixii macruufa oo ummadda dad tanteeda ku jirto inaan ka wada shaqayno Soomaaliya dhan ay u oomanayd wax muddo dheer oo imika aad muddo bisel inuu jiro baahi cad inay jirto taasana keentay taasana u sabab runtii in inta ay dibadda ka timi dhowrkii sano ugu dambeysay inaan noqonin aan joogno dal ka shaqeyno ama xil aan hayno ama inaan haynina taasi waxay cadeynaysaa inaan u nimid dalkayga hooyo inaan runtii wax ka qabanno waxna ka bedelno dhibaatada ka taagan maanta annaka waxa noo yaala waxa weeye marka insha Allah sida magaca uu sheegayo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda waxa weeye Soomaali mid bay ka madaysan tahay taasoo ah runtii in la badbaadiyo jiritaankeeda Qadiijo Ciise Faracade oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa maasooyin micno fog ka hadlaya ka jeedisay goobta madasha lagaga dhawaaqay hayeeshee adoon gobolada dalkiyo dhammaan isu geyn xubnaha gumaystuhu kala qoqobay adoon geedkii xurnimo bulshada gaajaysan iyo miraha ubadka uga gurin gartay weeye adoon wanaagan ku galiyo abaalkaygii aan gudin dareeskii gobonimiye adoon ii gelin xariir gooyaha ubax igu sharaxin guyaal baan doonayay calanka guudkayga surin walle gama kuuma yaal ugu dambeyntiina ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Abdiweli Sheekh Ahmed Maxamed oo madasha midnimada wada tashiga gudoomiye loogu doortay ayaa hoosta ka xariiqay ujeedooyinka loo yagleelay madashaasi waaba badiyay waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo shaqadii dheereed oo aad soo qabateen adinka iyo inta naga maqan mid baan rabaa inaan ku daro waxaa dhici karta telefishinka iyo idaacadaha iyo markay sheegaan in yiraahdo meesha la lagu shiray oo mucaarad baa shiray oo bahalkii baa shiray ra'iisul wasaarihii hore oo caraysan ayaa dad shirsaday oo waxaas in la yiraahdo annaga dawladda iyo xukuumadda wixii wanaagsan waa kula shaqeynaynaa anigu meeshaan joogi jiray inay horey u socoto ma ogiye in la dhibaateeyo ma ogoli runta adinkuna ma ogolin dadkeena iyo dalkeena waa burbureen dhowr qof iyo intaasoo wasiirna kuma filla dalkan inay burburka ka saarto innagoo dhan waajibna saaran weeye in inta naga maqalna ay nala fahamto waxaas dantaas inaan wadno oo aanan ahayn dad wada dhib Ilaahay baa naga korinaya dhib ma wadno Abdi Casiis Ibrahim Ahmed Okay TV-ga Universal magaalada Muqdisho